السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamay saaxiibadayda sharafta mudan ee inta badan igala socda baraha bulshada Facebooka iyo YouTube-ka. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrin aniga aad ii cajab gelisay. Iyadoo dalkeena Soomaaliya uu leeyahay ciidamo aad u fara badan oo ku hubaysan gawaarida gaashaaman iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Madaxdu ay ku andacootay inta badan in ay bixin doonaan mushaaraadka ciidanka. balse waxa yaab iyo fajac igu noqotay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan oran karo qaybo kamid ah oo loo adeegsanayo in lagu weeraro guryo ay leeyihiin siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ah mucaaradka dawladda haddana ay soo baxdayba in loo adeegsado qabsashada xarunta baarlamaanka. haddaba su'aasha aan madaxayga weydiiyey oo aniga aadka iga yaabisa ayaa waxay tahay ciidamada loo adeegsanayo in lagu weeraro siyaasiyiinta iyo senatarada iyo golaha shacabka ma la awoodi kari waaye in lagu maareeyo ama lagu sugo amniga caasimadda Muqdisho meel kale iska daayay.